بسم الله الرحمن الرحيم waxaan sii wadaynaa marka qay spaceski markaan waxaan ku tusayaa sidee daadsadan looga xareeyaa oo dhammaystiran SBS-kaaga isla markaana markaad data ku xareyso su'aalahaaga markii fieldiga aad kadib hadhow waxaan ku tusi doonaa sidee jawaabaha loo geliyaa marka waxaan rabaa inaan ku tuso markaa su'aalahaas loo dhammaystiran hadda waxaan noo gelinay bis laba xabo oo kaliya waa sii dhammaystiranaa marka waxaan taaganahay variable view la soco markastaba wuxuu ka samaysan yahay laba baah data view iyo variable view waxaan taaganahay variable view waxaan soo geliyay age iyo gender waxaan rabaa inaan dhammaystiro qaybihii kale marka waxaan soo gelinaa hadda maritalkii ila soco waxaan bedelaa decimalka marital waxaan ka dhigaa su'aal what's your marital status calaamada su'aal saar halkan waxaan gelinaa possible answerka ay leedahay jawaab su'aashaas marital statuska jawaabaha survey ay leedahay kow waxaad doorataa inuu qofkaasi yahay single adhe laba waxaad doorataa in qofkaasi yahay married adhe saddex waxay ka dhigtaa mar raba in wax ku daro 9 waxay ka dhigtaa missing inay tahay waxaad dareemaysaa markaa halkaa marka data ma soo gelin haddaad waxaan rabaa inaan geliyo marka meeshaas discrete numberka igo mar kasta wuxuu yahay oo missingka u aqoonsado waa 99 waa ka wada sameeyay kulligood discrete numberka igo wuxuu yahay oo inaan geliyo aan rabo 99 maadaama kii dhexe uu ahaa tiro halka waxaan dooranayaa ordinal number kan maadaama uu name yahay waxaan dooran karaa nominal scale ordinal scale iyo nominal scale waxaan weydiinaa kale educationka sidoo kale waxaan bedelayaa decimalkii where education respondents education level kala qaad marka kow wuxuu doortay ka soo qaado kale inuu yahay secondary marna wax secondary ka hooseeya wax weydiino secondary inuu yahay labo alle waxaan dooranay qofka 18 jir ah ma 15 ma dhigi primary ma dhigi kara marka labo inuu yahay bachelor saddex inuu yahay master degree afar inuu yahay PhD soo ka wadnaa bis 99 waxa uu aqoonsataa inay tahay missing okay halkaas intaga waxaan gelinayaa city oo kale halka waxaan gelinayaa 99 waxaan leeyahay okay halkan waxaan dooranayaa nominal maadaama secondary ay kala sareeyaan ordinal dooran kara nominal oo dooran kara maadaama magac yahayna sidoo kale kala sareeyaa ordinal dooro sida numberka kala sareeyaa waxaa soo qaata occupationka qofka xirfad shaqadiisa what's your occupation jawaabaha geli marka qof wuxuu dhihi karaa waxaan nahay student adhe possible answerka labaad waxaan nahay businessman saddex waxaan nahay health worker sanadka wadaa afar waxaan nahay teacher 99 waxa uu aqoonsatay inay tahay missing in wixii maqal lagu calaamadeeyo sidaasaa loo wadaa ilaa laga gaarsiiyo meeshii la rabay haddii marka loo gudbo su'aalaha hadda loo yaqaano su'aalaha ciwaankaaga la xiriira way isbedelaysaa wixii nameka aan u bixinay waxaan u bixinaa Q1 su'aasha koowaad waxaan gelinaa marka su'aasha waxay ahayd what do you believe do you believe secret smoking
is bad kadibna tusaalanka wada bis kasoo qaad boos answerka koowaad inuu yahay yes adhe inuu labay tahay no adhe 99 waxa u aqoonsataa missing inay tahay adhe saasaa lagu wadaa su-aalaha hadday ahaadaan numberka ilaahuma 20 ama 30 ahaadaan sidaasaa lagu wadayaa oo lagu kaxaynaa sidoo kale question 2 isla tii hore kala la marsiinayaa do you have decision to stop cigarette smoking kadib waxaad tiradaa number 1 inay tahay yes number 2 inay tahay no 99 inay ku tahay missing okay ordinary sidaasaa lagu kaxaynaa ilaa may gaaraan 30 su-aalood may gaaraan sidaas ayaa lagu wadayaa do you get full awareness about risk of cigarettes, risk of smoking number 1 secure kale yes number 2 no 99 waxa u aqoonsataa inay tahay missingkii sidaasaa lagu wadaa ilaa su-aalahaaga aa ka dhamayso sidaasaa lagu kaxaynaa ilaa aa ka gaarto meesha dambaysa hadda waxaan ku tusay markaa see loo geliyaa su-aalahaaga macal possible answerka ay wataan idoo jawaabaha laga soo jawaabin kadib marka laga soo jawaabo hadhow waxaan ku tusi doonaa sida loo geliyaa jawaabaha hadda waxaan ka hadlaynaa waa sidaa loo geliyaa su-aalaha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi